بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إلى باب هذله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدن يا مروي سيدا لوضع صعنه وحاسمة دلك الصومالية لغو قبطي ما تشير سنداتكي ورقبالاتك أي كوبهوبين دلك أفريقيا إيغا وقرين ونسور دويننا إشركاسي كدعو مقالة مقدشو waxaan u aragnaa tallaabo geesinimo leh oo hore loo qaaday. dowladda Soomaaliland waxay soo dhaweynaysaa dadaalka ay ugu jirto beesha caalamka iyo dalalka midowga Afrika sidii nabad loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya isla markaana loogu dhisi lahaa dowlad adag oo hanata xilka iyo mas'uuliyadda saaran. waxaanu diyaar u nahay inaanu ka qayb qaadano isla markaana gacan weyn ka geysano dadaalada nabadda iyo dib u heshiisiinta dadka aan walaalaha nahay ee Soomaaliyeed. waxaanu nahay dal iyo dad bisil oo aaminsan in dhibaatada gaadha ay annagana saameyn weyn nagu leedahay. sidaa darteed waxaanu jecelahay nabaddooda iyo horumarkooda. waxaanu cambaaraynaynaa warmurtiyeedka ka soo baxay shirka madaxda IGAD ee ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan qodobka ka hadlaya midnimada Soomaaliya. waxaan u aragnaa mid la majar habaabiyey oo aan ka tarjumaynin xaqiiqda dhabta ah ee xaaladda Soomaaliya iyo Somaliland ka jirta. waxaanu dunida u caddaynaynaa in Somaliland tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay nidaamka federaalka dowladda Soomaaliya ee looga taliyay magaalada Muqdisho. waxaan u caddaynaynaa beesha caalamka in aanan metelin jamhuuriyadda Somaliland shakhsiyaad Muqdisho laga cugtay. waxaan u aragnaa maag iyo meelka dhac qaawan in magaca qarankayaga loo cimaamado cid aan shacbi weynaha Somaliland dooran ama aanay ceeleelyo u diran. ummadda Somaliland waxaa matila oo keliya ka mas'uula madax ku timid doorasho xor iyo xalaal ah, xukuumad iyo baarlamaanba. mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u caddaynayaa dalalka midowga Afrika, midowga Yurub, urur goboleedka IGAD, Maraykanka, Jamacadda Carabta, ururka Islaamka ah iyo dhammaan dalalka ku midoobay ee Jamciyadda Qurumaha Midoobay u dhaxaysa arrimaha hoos ku xusan. kow, Somaliland waa waddan leh taariikh dheer oo soo jiray ilaa 1887 isla markaana leh xuduud caalami ah oo loo aqoonsan yahay kana mid ahaa maxmiyadii Ingiriiska. laba, Somaliland waxay ahayd dal gaar ah oo xornimadiisii ka qaatay 26 Juun 1960 dowladda Ingiriiska. wuxuu ku biiray lana midoobay 1 Juulaay dalkii Soomaaliya ee Talyaanigu gumaysan jiray. saddex, Somaliland waa waddan isaga oo xora waddan kale oo xora ku biiray ma aha markii ugu horreysay ee laba waddan oo qaaradda Afrika ka mid ahi isku darsadeen haddana kala noqdeen. Masar iyo Suuriya waxay isku darsadeen 1958 waxayna kala noqdeen 1961. French Sudan iyo Senegal way isku darsadeen 1960 waxayna kala noqdeen 1960. Gambia iyo Senegal way isku darsadeen 1981 waxayna kala noqdeen 1989. shacweynaha Somaliland waxay si cad boqolkiiba 53 ku diideen Juun 1960 aftidii loo qaaday dastuurkii cusbaa ee loo sameeyey dalkii lagu midoobay ee la magac baxay Jamhuuriyadda Soomaaliya ay haatan meesha ka baxday. 5, muddo yar kadib markii shacbiga Somaliland garwaaqsadeen inay ku hungoobeen midnimadii, waxay saraakiishii ka soo jeeday gobollada waqooyi sameeyeen Disembar 1961 inqilaab dhicisoobay kaasoo ujeeddadiisu ahayd inay dib u soo celiyaan xornimadii Somaliland ee luntay. 6, Somaliland rubcu qarnigii u dambeeyey kamay qayb qaadan shirarkii kala duwanaa
ee dib u heshiisiinta Soomaaliya marnaba maantana qayb kama aha kama nihin shirarka Soomaaliya dawladda loogu dhisayo sidoo kale Soomaaliland kama mid aha midnimada federaalka yaglaasha ah ee ay ku midoobeen maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya kuwaas oo saxeexay isla markaana ogolaaday heshiisyadii iyo axdigii road mapka ay ku dhisan tahay dawladda federaalka Soomaaliya toddoba Soomaaliland waxay xornimadeedii la soo noqotay 18 May 1991 kadib markii ay salaadiinta garaadada iyo waxgaradka beelaha waqooyi shir isugu yimaadeen magaalada Burco go'aan midaysan ay ka gaareen in madaxbannaanidooda ay dib ula soo noqdaan 8 maaha markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliland dareenkooda iyo rabitaankooda muujiyaan shacbiga Soomaaliland waxay bishii May 2001 kalsooni cod buuxda 97.7% ku taageereen aftidii loo qaaday dastuurka cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qadiyadda go'aansitaanka dalka 9 Soomaaliland waa dal buuxiyey dhammaan shuruudihii loo baahnaa waddan madax bannaan oo leh dawlad xukuumad iyo baarlamaan iyo dimuqraadiyad lagu doortay xuduud sugan oo caalami ah cumlad iyo calan u gaara toban madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland waa mid laba taabtaana mana jiro haba yaraatee hami iyo himilo salka ku haysa in dib loo midoobo dalkaanu ka go'nay Soomaaliya arrimahani waxay daliil cad u yihiin in jiritaanka Soomaaliland aanay ahayn wax ku dhisan riyo iyo dhalanteed balse ay tahay mid ka tarjumaysa xaqiiqda dhabta ah iyo go'aanka shacbi weynaha Soomaaliland qaatay sidaa darteed waxaa mudan in la ixtiraamo xaqa ka tashiga iyo rabitaanka shacbiga Soomaaliland waxaan bulshada caalamka ugu baaqayaa inay garwaaqsadaan xaqa sharci iyo ka bani'aadminimo ay shacbiga Soomaaliland u leeyihiin inay noqdaan qaran madax bannaan mudanayaal iyo marweyn qarannimada iyo madaxbannaanida Soomaaliland waxay dan u tahay nabadgelyada deganaanshaha geedi socodka dimuqraadiyadda ganacsiga iyo horumarka bariga Afrika iyo caalamka intaba madax urureedka gobolka IGAD iyo dalalka midowga Afrika intooda kaleba waxaan ka codsanaynaa inay qadiyadda Soomaaliland miiska keenaan isla markaana ajandayaasha shirarka dambe ku darsadaan waxaan ku marti qaadayaa midowga Afrika inay u soo diraan Soomaaliland guddi xaqiiqo raadisa oo ka gungaadha rabitaanka shacbiga Soomaaliland iyo sharciyadda ay ku dhisan tahay dal ahaan sida ay u waafaqsan tahay cahdi qarameedkii xuduudaha qaaradda Afrika mudanayaal iyo marweyn ugu dambeyn waxaan shacweynaha Soomaaliland ugu baaqayaa gudo iyo dibadba meel kastoo ay joogaan inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qarannimadooda iyo qadiyaddooda inay rabitaankooda ku muujiyaan cod dheer iyo cudud midaysan wabilaahi tawfiiq aad iyo aad baa umahadsantihiin